bismillaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan daawadayaal. qodobada wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo war ka soo saaray xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne ku-xigeenka Kuuba oo sheegay in Kuuba la'aanteeda Itoobiya ku hoos noolaan lahayd Soomaaliya. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo shaaca ka qaaday qodobo ay isku hayaan maamul goboleedyada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Somaliland oo hanjabtay saraakiil ciidankeeda ka tirsanaa ee ku biiray Puntland iyo maamulka Puntland oo heshiis dekad lagu dhisay la saxiixday shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha. wararka dibadda wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah Suudaan oo albaabada isugu dhufatay xafiiskii TV-ga Al Jazeera iyo ciidamada Israa'iil oo toogasho ku dilay muwaadiniin Falastiiniyiin ah. daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan. haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka, fadlan subscribe barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka. xilli uu cirka isku shiishareerayay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Kenya ayaa war ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxaa looga hadlay xiisadaasi u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay inay isku dayayaan inay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Kenya. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa mar kale ka hadlay xiisadda iyo khilaafka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo meel xun maraya. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo wareysi siiyay qaybta af-amxaariga ee idaacadda VOA-da ayaa sheegay in dowladda Itoobiya iyo dalalka kale ee gobolka ay isku dayi doonaan inay xal u helaan xiisadda labada dal. waa inaan midba midka kala caawinaa oo aan ka gacan geysanaa xalinta arrimaha taagan, ayaa uu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya. wuxuuna intaasi ku daray in dalalka dariska ah Soomaaliya iyo Kenya ay walaac ka qabaan in khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya uu saameyn ku yeesho gobolka oo dhan. waan ognahay in dhibaato kasta oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay nagu soo baahi karto, sababtaa daraaddeedna waxaan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno oo aan xalinno, ayaa uu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ma aanu sheegin qaabka ay u xalinayaan xiisadda labada dhinac, iyadoo ay Soomaaliya ay diiday in ay Kenya wada hadal kala gasho xiisadda oo salka ku haysa badda Soomaaliya oo Kenya ay sheegatay inay leedahay. madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kuuba ayaa sheegay in Kuuba la'aanteed ay Itoobiya ku hoos noolaan lahayd Soomaaliya, xilli dowladda Kuuba ciidamo ka tirsan ay ka qayb qaateen dagaalkii 1977 dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Kuuba Salvador Feldis Mesa ayaa ka qayb galay munaasabad xuseed oo loo qabtay askartii Kuuba kaga dhimatay dagaalkii ay la galeen Soomaaliya iyagoo garab siinaya ciidamada Itoobiya. Salvador ayaa arbacadii munaasabad ka dhacday Addis Ababa ka qayb galay, waxaana munaasabada goobjoog ka ahaa wakiilo kala duwan oo uu ku jiro danjiraha Kuuba ee Midowga Afrika iyo madax ka tirsan dowladda Itoobiya. Kuuba ayaa ku faantay in Itoobiya ay ka moostay ciidankii Soomaalida oo inta badan jabiyay dhufaysyadii ciidamada Itoobiya, waxaana uu ubax dhigay taalo lagu xardhay sawirada askar Kuuba kaga dhimatay dagaalkii 1977 dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya. wargeyska Prince Latin ayaa sheegay in Kuuba ay muujisay doorkii ay ku lahayd dib u celinta ciidankii Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku dhawaa inay qabsadaan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa March 1978. ciidamo badan oo ka socda Kuuba oo taageero ka helayay Midowga Sovieti ayaa ku garabsiiyay ciidanka Itoobiya dagaalkii 1978 dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. dagaalkaasi wuxuu istaagay 15 May 1978 xilligaasoo Itoobiya ay nafis heshay maadaama gurmad degdeg ah ay ka heshay Midowga Sovieti iyo Kuuba. Kuuba si dhab ah uma shaacin tirada askarta oo geeriyootay dagaalkaasi, waxaase taalo lagu xusaya askarta Kuuba ee ku dhimatay dagaalkaasi looga dhisay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, iyadoo sanad walba bisha May lagu qabto munaasabad xuseed magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. sababta Kuuba ay u garab istaagtay Itoobiya waxaa khubaro badan ku sheegeen in awooddii ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya aanu isku dhigmin xilligaasi marka la eego dhinacyada tababarka iyo hubka iyo xirfadaha ay ku dagaalamayeen dhinacyada dirirayay. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Kuuba ayaa sheegay in uu wanaagsan yahay xiriirka dalkiisa iyo dalka Itoobiya ka dhaxeeya wixii ka dambeeyay 1977 oo ay garab iyo gaashaan u noqdeen ciidamada Itoobiya isla markaana la'aantooda Itoobiya xilligan ay ku hoos noolaan lahayd Soomaaliya.
yuusuf garaad cumar oo mar noqday wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday qodobo ay isku hayaan dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa ka hadlay muranka u dhaxeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka. yuusuf garaad cumar ayaa waxa uu sheegay in murankaasi ay ka mid yihiin qodobo aan ku qornayn ajandayaasha wadahadalkooda iyo go'aamada hawada la isku marinayo. yuusuf garaad ayaa sidoo kale waxa uu dhaliil u jeediyay qoraal ka soo baxa maamul goboleedyada oo luqadda afka Ingiriiska lagu qoray, isagoo xusay inuu jiro tuhun iyo damac ku shubasho doorasho ah oo ay iska qabaan madaxda dowladda iyo hogaamiyaasha maamulada. muranka federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa ka mid ah qodobo aan ku qornayn ajandayaasha wadahadalkooda iyo mowqifyada hawada la isku marinayo oo qaarkood ay ku qoran yihiin afka ajnabiga la isku dacweeyo, ayaa uu yiri yuusuf garaad oo qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook-ga. wuxuu intaasi ku daray wasiir yuusuf garaad waxaa tuhunka uu midba midka kale ka qabo in uu damacsan yahay in uu gacan maroojiyo iyo ku shubasho uu ku soo saaro xildhibaanada baarlamaanka 2020 iyo waxa xiga, ayaa uu yiri wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya yuusuf garaad cumar. maamulka Somaliland ayaa u hanjabay saraakiil ciidamada ammaanka Somaliland ka tirsan oo ku biiray ciidamada Puntland. Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulkooda oo u goostay dhinaca maamulka Puntland. wasiirka gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan saraakiishaasi ciidamadaas ka tirsanaa ciidanka Somaliland ee ku biiray dhinaca Puntland. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ku hanjabay in ay maxkamadeyn doonaan saraakiil iyo ciidamo ka goostay Somaliland oo ku biiray Puntland, isagoo ku eedeeyay inay yihiin qaran dumisyaal caqabad ku ah Somaliland sidoo hadalka u dhigay. wasiirka gaashaandhigga Somaliland waxa uu sheegay in kiiska askartan isu dhiibay Puntland loo gudbin doono maxkamadda ciidamada Somaliland sidoo hadalka u dhigay, isla markaana ay la kulmi doonaan caqabado sidoo hadalka u yiri wasiirka ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay inaysan jirin wax amar ah oo lagu farayo saraakiisha goostay inay weerar ku qaadaan degmada Badhan, isagoo tilmaamay in Badhan ay ka mid tahay deegaanada hoostaga maamulka Somaliland. maamulka Puntland ayaa heshiis lagu dhisay dekad la saxiixday shirkad laga leeyahay wadanka Shiinaha. maamul goboleedka Puntland ayaa heshiis lagu dhisay dekad cusub oo laga hirgelinayo degmada Ayl la saxiixday shirkadda China Civil Engineering Construction oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan CCACC. wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland Faarax Awaashe iyo madaxa shirkadda ayaa kala saxiixday dhismaha dekad kalluumeysi oo casri ah oo shirkaddu ay ka hirgelinayso degmada Ayl ee gobolka Nugaal. saxiixa heshiiskan waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo booqasho ku jooga caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing. shirkadda CCACC oo hirgelinaysa dhismaha dekadda Ayl ayaa waxa xarunteeda weyn ay ku taallaa magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, waxaana horey u dhistay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. haddana waxa ay Puntland ka wadaa mashaariic horumarineed oo ay ugu horeyso garoonka diyaaradaha Gaalkacyo iyo wadada Ayl Dangoronyo ilaa iyo gobolka Nugaal. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayna waxa kamid ah dowladda Suudaan ayaa albaabada isugu laabtay xafiiskii telefishinka Al Jazeera oo ku lahaa wadanka Suudaan. dowladda Suudaan ayaa ruqsadii shaqo kala laabatay shaqaalihii u shaqeynayay telefishinka caanka ee Al Jazeera ee laga leeyahay dalka Qatar, waxaana albaabada loo laabay xafiiskii Al Jazeera ee ku yaalay magaalada Khartoum. Al Jazeera ayaa si joogto ah u baahin jirtay muuqaalada dibadbaxayaasha Suudaan. ma jirto wax sabab ah oo noo sheegay oo ku aadan xiritaanka xafiiska, ayaa lagu yiri war ka soo baxay TV-ga Al Jazeera. xiritaanka ayaa yimid kadib markii madaxa golaha militariga Abdel Fattah al-Burhan uu u safray Sacuudi Carabiya khamiistii isagoo ka qayb galayay ciidamada Israa'iil ayaa 2 qof oo muwaadiniin Falastiiniin ah toogtay. ciidamada Israa'iil ayaa toogtay ruux aqaan gaar ahayn oo doonayay inuu galo dhulka la haysto ee bariga magaalada Jerusalem si uu uga qayb galo tukashada salaada Jimcaha ee Masjidka Al-Aqsa. qofka labaad ayaa la sheegay in lagu dilay qaybta qadiimiga ah ee Jerusalem kadib markii la tilmaamay in uu mindi ku weeraray askari Yahuud ah, waxaana uu dhaawacay 2 askari. wakaaladda wararka ee Falastiin Wafa ayaa xustay in wiilka la dilo oo ahaa 16 sano jir lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Khaliidi
sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka Falastiin. ciidamada booliiska Israa'iil ayaa sheegay in wiilkaasi la dilay uu ka yimid deegaanka Bethlehem isla markaana uu isku dayay inuu u soo tallaabo Jerusalem, waxaana ciidamadu inta ay raaciyeen inay socdaan baaritaano ku aadan qaabka loo dilay wiilkaasi. guud ahaan daawadayaal warkii waad kala socoteen wararka TV saaka wanaga